shirkan jaraa'id oo ay magaalada Muqdisho si wadajir ah ugu qabteen safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha Cawaale Cali Kulane iyo safiirka dawladda Shiinaha u jooga Soomaaliya ayaa waxa ay kaga warbixiyeen xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Shiinaha oo uu ka dilaacay xanuunka coronavirus-ka. safiirka dawladda Shiinaha u jooga Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arday badan oo Soomaaliyeed ay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaala magaalada Wuhan kuwaasi oo sida uu sheegay ay dawladda Shiinaha si dhow ula socoto badqabkooda. dhankiisa safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha Cawaale Cali Kulane ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya aysan awood u lahayn soo daadgureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xaniban gobolka Wuhan. horta hore aniga wadankan oo fasaxii wuxuu dhacay barnaamijkan inta waqtigii fasaxa lagu jiray anoo halkan joogo cudurka dilaacay saasaan u joogaa xaggana waa aadi doonaa xaaladda dhalinyarada xaga ku jirta dabcan magaalo karantiilaysan qof ku jiro xaalad ma ku jiro oo tii ugu fiicneed ah laakiin way caafimaad qabaan wadamada dadka soo daabuleeyay hadda horena ooga hadla haddana waa idiin sheega wadamada maxaan lahaa Soomaaliya oo kale la midka ah in dadka loo soo qaado ma ayaga ma soo qaadin waxaan rabnaa inaan fahamno caqabada ugu weyn oo jirto dadka inay ogaadaan caqabada waxa waaye meesha cudurka ka dilaacay epicenterka Wuhan oo kale haddii dad laga soo daabuleynayo wadamadii xataa qaaday dadka ama Mareykan ahaadaan kulligood dadkii maanta waxay ku jiraan xerooyin waxay ku jiraan camps waxay ku jiraan jasiirado Australia wadan weyn ah jasiirada ku jiraan dadkii qaadeen 600 qof ay qaadeen Mareykanka Ingiriiska dadkii qaadeen xerooyin ciidan ay ku jiraan Faransiiska marka waxa loo baahan yahay dadka laga soo wada meesha cudurku ka dilaacay in ugu yaraan 20 maalmood lagu karantiili karo la heli karo goob lagu karantiilo oo ay lagu daryeeli karo lagu ogaan karo xataa ayagan caafimaadkooda inuu fiican yahay marka annaga xaqiiqada taal waxa way ma hayno space kaaseeto ma hayno fursadii caafimaadka aan taas aan ugu qaban lahayn marka marna ma hayno dhalinyarada la daryeeli way laakiin tanna macnaheedu ma inaan ka gaabino oo aan dhahnay ma la soo wadaa marka hadaan heli karno sida wadamada aad tilmaanto kale oo helay dalal kale ka caawiyo waqtigaas karantiilka in loo qaado waa ku maqannahay madaxda qarankana runtii way wada raadinayaan laakiin inta ka sokayso waxaan ku qasbanahay inaan walaalaheena dawladda Chinese la shaqeyno hubino Soomaalida xagga joogto kuwa maxaa la Wuhan joogo iyo kuwa kalaba inay caafimaadkoodu fiican yahay hadii wax la soo darasaan aan dhaxrin marka ayagoo dhan waa la xiriirin dhalinyarada Wuhan joogto qoraalaan u qornay safaaradda intooda badan waa la hadalnaa culeysada ay sheeganayaan runtii waa garan kartaan qof la dhaay qolkaada kama bixi kartid ama magaalada marka ay safka ku xirnaado gacmahaadi wajiga kala ilaali qof ku jira ma aan xaaladii ugu maxaan lahaa geedka ugu fiicneed marka aan u duceynaa ayaga laftirkooda in Ilaahay waqtigan ay taada ka saaro